ودنكيسو شقيا ولا wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan yadi marka waxay samaysay midi bay soo qaaday xaf bay ka siisay laba dhinac bay u kala goys waa dhexda isugu keento waa sida inaga gar maslaxayn nidhaahna Soomaa waa gar maslaxo in meel dhexe maartay la isugu keeno oo la yiraahdo adna hebel wax ka tanaasul hebel wax ka tanaasul wuxuu sameeyeen labadii jeex bay carruurtii kala qaateen way la kala tageen labada carruura mid wuxuu rabay inta dhexe kaliya inuu cuno diirka muu rabay ka kalena wuxuu rabay diirku rabay kaliya inta dhexe muu rabay marka labadiiba khasaareen Soomaa ciibiyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan malka yado iyo degmooyinkiisaba waa wada sharfan yihiin ninka hadda cudurdaar ama degmada hadda cudurdaar ka dhigtay doorow in la imaadana waxaan ugu baaqaynaa waa loo tagi doonaa iyagana inay imaadaan oo soo kordhiyaan waxa aan anaga qaadanaad u qaadan doontaan sabab wanaag baan qaadanaa anaga xumaan maana qaadanin xumaanna idin qaadin mayno idin kama tashanin taladiinana kama maarano waa idin baahannahay inaan idin imaanana ilaahay waa yeelayaa laakiin waxa fiicneed inaan meeshaan iskugu imaano aanba u wada guurna meeshaad joogtaan taas waxaan leeyahay halka degmo naga maqan iyo waxa maceeda waxaan ka baranay 10 badan 10kaas oo kamid ah mid aanan filanayn inta aan nabadda ka qayb galay nuxurkiisa aanan taaban baad meeshan ka helay oo ah annagu haddaan nabadoonna nahay waxaan dhinac wareeganaa maxaa tiraahdaa asalka dhibaatada meeshay ka bilaabatay ma taabano kor baan ka wareegnaa maanta waxaan nala baray inta aanan gelin dhibaatada inta aanan gelin maxaa tiraahdaa dhibka joojintiisa iyo waxyaalahaas dhinacyada intaan la marin sababta keentay in loo gudo galaan ka baranay insha Allah ta'ala in la ogaado sababta keentay dibna loo raaco boogta meeshay ka bilaabatay markaas dayid lagu sameeyay taasaan ka baranay waxaan soo dhaweynaynaa nabad waxaan saacad kasta iyo waqti kasta aan u maartay naftayada u horeynaa aan u dhafreynaa aan u istaagaynaa nabad walaalayaal haddaan nabad la helin nolol ma jirto intaa waa intii isu dhanay waa intii isu baahnay waa intii wada dhalatay waa intii isku diin iyo isku dad iyo isku dal ahayd meeshaan maxaad ka barateen haddii la yidhaah waa run wax badan baan ka barannay waxaan naqaanay baa naloo sii bisleeyey oo nala tusay waxyaalaha aan ka barannay hal qodoba markaan ka taabto waxa weeye waxaan ka barannay mushkiladda in caleenta iyo laamanka iyo jirridda ayna ka biskoonaynin hoos in laga qodo oo waxa bushiyey geedkan laga soo saaro gudaha oo la dumiyo sac nabadgelyo iyo geed fiican oo fiyo uga soo baxa meesha taasaa ka mid ah waxaan ka barannay waa badan yihiin inaysan u ogolaanaynin wax xun bulshadeeda haddii wax laga qayb geliyo mase wax lagu aaniyo saas ayaan aaminsannahay marka saas dadka waxaan leenahay haweenka in naaftiisa laga qayb geliyo horta qabiilka allah naga reeb haddii waxaan u malaynayaa dadkaan oo dhanna waa waxgarad waa mahadsantihiin insha allahu shirkana maaragtay si wanaagsan buu hadda u socdaa macallinkana waxaan leeyahay macallin 100% waana kuu mahad celinaya waana ku salaamaya shir wada tashi dib u heshiisiineed khilaaf bixin ah oo gobolka uu ka kooban yahay wixii aan ka fahanay shirkan in ka gobol ahaan aan midowno wax qabsanno horay u soconno khilaafka odayaasha aad arkaysaan waa nabadoonno laakiin wixii hadda meeshan ay ka barteen awal hore bay si aqoon meeshan waxaa laga bartay cudurka meeshu ka bilowda daawadada si lagu helaa waan soo dhaweynaynaa dadkaas annagu waxaan u taagannahay haddaan reer doolow nahay mar kaste
nabadaan u taaganahay gobasheeda aad baan ugu mahadcelinaynaa wixii nabad ah oo nabad ka shaqaynhayo waan soo dhawaynaynaa